Axmed Silaanyo oo kamid ah macallimiinta wax ka dhigta gudaha Somaliland oo dhawaanun xabsiga loo taxaabay kadib markii ay isku magacaad noqdeen madaxweynaha Somaliland ayaa dib xorriyadiisa u helay sidoo warbixinta warkaasi inoogu faahfaahinayo wariyahayaga Faysal Aadan FIFA. Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waa barin wax ka dhigay dugsiyada ku yaala gudaha Hargeysa waxaana dabayaaqadii toddobaadkeena ka soo gudubnay ciidamada la socodka dhaqdhaqaaqa gaadiidka taraafikadu ku xidhan gudaha Hargeysa iyadoo maalintii shalay haadna dib u helay xorriyadiisa macallin Silaanyo waxaana xarunta qasiga madaxtooyada Somaliland caasimadda u fidiyay madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo kulan dheer oo isxog weydaarsiya isla markaana intiisa badan ku qotomay sababta uu kula baxay magaca Silaanyo iyo cafinta khaladka ciidamadu kula kaceen kadib waxa warfidiyaanka saaka kula hadlay gudaha dugsiga uu baraha ka yahay Nuruddin magaalada Hargeysa waxaanu faahfaahin mugle ka bixiyay qaabkii loo xidhay isagoo si gaar ahaaneedna ugu mahadceliyay u xusay nidaamkii ula dhaqmeen ciidamada taraafikada gacanta ku hayay si weyn ugu mahadceliyay madaxweynaha Somaliland casuumadii uu fidiyay wax dambiya maangelin magaca madaxweynahana magacayguna waa Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo kadib ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa baabuur kamida shaqaalaha iyaga iskuulka kamida lacag ku ganaaxay lacagtii baan bixiyay kadib ganaaxii aan bixiyay wax weeyaan laga soo tixraacay halkana la igu yimid iskuulka waxa la igu yiri waxa ku doonaya taliyaha laanta nabadgelyada ee traafiga halkan aan si sharaf ugu tagay ardayda wax weeyaan oo daabuurka ku jiraan raacay kadib halkan ka eegayay inuu su'aal weydiiyo wax dambiya maan gelinay waxa uu sameeyay inuu yiraahdo gal oo wax weeye meeshii dadkii dambiyada lahaa ay ku jireen oo igu xidhay waxa taay raacday dadkii soo booqanayeen rasaas ayaa loogu jawaabay marka aad baan uga xumahay sida uu ila dhaqmay iyo sida dadkii magaranaysa sharafta lahaa ee iimanayay madaxweynuhu wuxuu yiri aad baan ugu faraxsanahay qof aan isku wax weeye waa samigaygii anna shalay dhiiranaan iyo wax weeyaan kalgacal bay taasi siisay waxaan ku faraxsanahay inaan magaca hadda la yiraahdo Axmed Maxamed Maxamuud Xadi Silaanyo waxaana inta waxay raacda sharafta iyo wax weeyaan karaamada oo madaxweynuhu naqaabilay ayaan aad ugu faraxsanahay waxaan dhankiisa isaguna warfidiyaanka isla goobta kula hadlay Mahad Maxamed Ibrahim oo maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin waxaanu mahadceliyay madaxweynaha xukuumadda garsoorka iyo sidoo kale ciidamada biliiska waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud waxaan uga mahad celinaynaa in uu maamulihii qaabilay oo uu qasriga madaxtooyada ku casuumay oo uu ka jawaabay codsigayagii maamulihiina uu joogo oo aad insha Allah taala la hadli doontaan waxaan anigoo fursaddan ka faa'iideysanaya u mahad celinayaa garsoorka dalka waxaan ilaahay uga baryayaa madaxdeena garsoorka ee maanta joogta inuu ilaahay ciribtooda wanaajiyo dacdadan ayaa haytii ugu hadalhaynta badnayd ee toddobaadkeenu ka soo gudubnay baraha ay bulshadu ku kulanto ay si weyn shacbigu ugu qaadaadhigayeen sababta isku magac u noqdeen madaxweynaha Somaliland taasi oo inta badan shacbigu ay si weyn uga dhiidhiyeen Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada